gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn Puntland miisaan intee la ku leeyihiin shacab ahaan iyo deegaan ahaan Puntland maxay ka yihiin halka waxaan rabaa cid aan aqoon inaan u sharaxo gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn Puntland waxa ay ka yihiin gobolada ugu muhiimsan gobolada ugu badan ee cashuurta Puntland ay ka soo xarooto laakiin waxyaabaha la iibiyo oo dadka wax magaratada ah loo sheego waxa weeye inaysan gobolada wax cashuura aysan Puntland ku soo biirin dhaqaalaha ugu badan ee cashuurta Puntland ka soo xaroota waxa ay ka timaadaa xoolaha nool iyo xabkaha iyo waxa la midka ay dibadda u dhoofino goboladaasna waxay ka mid yihiin gobolada ugu badan ee xoolaha nool iyo xabkuhu ka yimaadaan ee Puntland ay dhoofiso isla markaa waxa dekada ka soo dega oo ama raashin ah ama qutul daruuri kale ah waxay ka mid yihiin gobolada ugu badan ee laga isticmaalo yana mar labaad cashuurtii halka ay kaga soo noqoto marka horta istiraatiiji ahaan dhinaca dhaqaalaha saasay muhiim ugu yihiin dhinaca amniga waxay ku yaalaan xuduudo saddexda gobolba waxa ay ku yaalaan xuduudo haddaan amnigooda laga shaqayn oo aan amnigooda la adkayn waxa fududaanaysa in Puntland qaybaheeda kale iyo goobaheedii kale oo ma garanaysa miisaanka badan lahaa sida dekadaha iyo airportyada iyo kulli in si fudud loogu soo gudbo gobolada marka waxaan oran karaa maamulba meel bay u soo joogtay maamulka hadeer joogo ma fashilmay soo celinta deegaanada mana ku guuleysan karo muddada yar oo u hartayna suuragal ma aha totally waa ay lumiyeen waana ay lusgareeyeen waxaana ugu dambeysay buuhoodle oo aan hadaaya ka sheekaynay inaan caawi nabadgelyo lagu jiifin in la soo gaaro Garowe masaafo yar oo kilomitro u jirta in uu soo fariisto maamulka Somaliland oo markaa sheeganaya deegaanada gobolada sheeganaya arrimahaas oo dhan marka waxay kamid waxyaabuhu ku guuldareystay Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas inuu ciidamo ku ururiyo Tukaraq inuu yiraahdo dhaqaalaha la ururiyo inuu yiraahdo dhaqaalihii Puntland mushaarooyinka iyo loogu talagali jiray ma bixin karno xaalada dagaal baanu ku jirnaa inuu jaaliyadii dibadda dhaqaale kaga urursado isla markaasna kuwii furinta joogay aysan helin adeegii iyo dhaqaalihii magacooda ama lagu xanibay ama lagu soo ururiyay aysan helin marka dadka deegaanada jooga waxyaabaha deelqaafka ah oo lagula hadlo waxa kamid ah in la yiraahdo deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn dadka degan iyaga qayb Somaliland jira qayb waxa weeye maamul goboleed madax banaan raadinaya qayb Puntland jooga laakiin arrimahaas oo dhan waxaan oran karnaa waxa ku marmarsiyooda nin qaban waayay wixii waajibka ku ahaa dadku waa midaysan yihiin waa reer Puntland deegaankoodu waa Puntland shacabku waa reer Puntland dhaqanku waa reer Puntland waxay u wada diyaarsan yihiin Puntland hadii la helo xuquuqdoodii difaacaysa horumarkii deegaankooda ka qayb qaadanaysa deegaanadii kale Puntland sida loo difaacayo loo horumarinayo si lamida loo horumarinayo dadku waxay diyaar u yihiin iyana inay gutaan waajibaadkooda daawadaha qiimiga badan oo ma doonaysa inaad si fudud goor kasta u heshid warar iyo warbixino kuraale geliya hadda leekay follow iyo share page-ka Dhulmar Media saaran